Waxaa la soo gabagabeeyay oo soo idlaaday imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare oo ay u fariisteen arday gaaraysa 35,000 oo arday oo ka kala socotay dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland. Wasaaradda Waxbarashada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in si nabadgelyo ah uu soo idlaaday imtixaanaadkii ay ardayda Soomaaliyeed u fadhiyeen maalmihii la soo dhaafay. waxaan halkan u joognaa maanta waxay tahay inaan ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aan ugu hambalyeeyno inaan maanta ay noo soo gabagabowday marxalad muhiim ah oo ah in imtixaankiisa nabad ah oo ku soo dhamaaday ardayda Soomaaliyeedna ay ku jiraan inay marxalad ka gudbeen oo marxalad kale u gudbeen. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo dabcan mas'uul ka ah taabagelinta adeegyada waxbarashada, tayeynta waxbarashada iyo dejinta manaahijta ardayda wax lagu baro iyo sidoo kale tababarida iyo qoondeynta macallimiinta Soomaaliyeed ee ubadkana wax bari lahaa. waxaa waajibaadkeeda sidoo kale kamid ah inay maamusho imtixaan midaysan oo dalka oo dhan ka dhaca oo ubadka Soomaaliyeed si midaysan looga qaado si ay shahaado midaysan u qaataan kadibna ay tacliinta waxbarashada sare ay u aadaan. maanta waxaa soo gabagaboobay sanadkii 8aad oo ay wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dowlad goboleedyada wasaaradooda waxbarashada iyo gobolka Banaadir ay maanta soo gabagabaysay imtixaankii midaysnaa ee shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ah kii 8aad. runtii arkaas waa guul weyn oo dowladda Soomaaliya u soo hoyatay. arkaas runtii saameyn weyn oo dhanka wanaagsan ah ayay wax ku soo kordhisay. waxaa maanta imtixaanka u fariistay oo imtixaankooda u fariistay imtixaanka maanta ay u soo gabagaboobay oo 5 maalmood u dambeysay imtixaanka soo galay arday kor dhaafaysa 35,000 oo arday oo dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan kala jooga gobolada iyo degmooyinka waliba gobollo aad u fog oo runtii wasaaraddu ay waqti badan gelisay iyo wax wixii dhaqaale heli karto in arday kasta meesha munaasabka uu joogo lagu gooyo imtixaankiisa. marka waxaan rabaa insha Allah taala wixii dhammaan iga dambeysay inaan insha Allah taala warka nuxurkiisa inaan u dhaafo hadii alla idmo waana maasintii waxaan rabaa inaan insha Allah taala aan mikrofon ku soo dhaweeyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye Kaniif maasan taliye sidoo kale ardayda imtixaanka gashay iyo dadka waalidiintood iyo Soomaalida intaba nagala qayb qaadatay imtixaanka ayagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. 125 goobood baan filayaa in lagu qaaday imtixaanka 35,000 arday dhaafaysaana ay maaragtay imtixaankii ka qayb galeen. arrin sahlan maahan. intaas oo goobood waxaa sugahayay ciidanka booliiska amnigooda ama gobolada hadday noqoto iyo hadday magaalada maaragtay Muqdisho noqoto intaba mudane wasiir waxaan adiga iyo wasaaradda waxbarashada sidii aan noola shaqayseen oo ciidanka booliiska maaragtay u gacan siiseen aad baan kaga mahad celinayaa. sidaad la socotaan imtixaankan midaysan waa sanadkii 8aad oo la qabto waxaana ka qayb galay 35,000 oo arday 25,000 ku dhawaad oo gobolka Banaadir ah iyo gobolada kale 4 maamul goboleed oo kale oo iyagana 10,000 ay ka qayb galeen. imtixaanka midaysan sida loo bilaabay faa'iidooyin badan baa laga helay. faa'iidooyinka laga helay waxa weeye in shahaadadii la mideeyo, in manhajkii uu midaysan yahay, shahaadadii in caalamkii ay ku kalsoonaadaan wadamadii deeqda waxbarashada siinayay, inay meesha ka baxaan shahaadooyinkii laga sameyn jiray bakaaraha ama cabdirashideey loo aqoon jiray oo dadkii samaystay ay meel cidla ah ku soo dhaceen oo lagu kalsoonaado shahaadada wasaaradda ay bixinayso. maalinta ka dambaysa ama sanad ka dambeeya ardayda waa isii kordhayaan. waagii hore ardayda ayagoo imtixaan gelin bay waxay ka qaadan jireen suuq ka qaadan jireen laakiin wixii waa soo xirmeen. sanadkan kaliya kama maqnaan weligeed maba gelinba laba gelin laakiin wada hadal baa socda in manhajka la mideeyo. maamul goboleed 2 shir baan qaadanay, shirar saddexaadna waa noo dhiman yihiin oo insha Allah wasaaradda leadershipka imaan doona sii wadi doonaan si manhajkana loo mideeyo. sababtoo ah weeye Puntland waxaad ogtiin mar hore shaqo soo bilowday manhaj bay samaysatay koonfurta 4 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir manhaj baa loo sameeyay. waxaa la rabaa labadaas manhaj in isku guuriyo marka la isku guuriyo la mideeyo ama curriculumkaas la mideeyo ayaa imtixaan midaysan la qaadi karaa.